متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا maanta waxaan kaga hadlaynaa hooyinka wanaagsan taasoo amaanada alle oo ka waramay amaanada waxa uu yidhi in allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha. alle waxa uu ina amraya inaan u celino amaanada dadkayga. alle oo ka waramay sifada muuminiinta waxa uu yidhi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. waa kuwa ilaaliya amaanada iyo ballanta. amaanada si fiican u gudan. nebigu waxa uu ku daray calaamadaha lagu garto munaafiqa. nebigoo ka waramay calaamadaha munaafiqa waxa uu yidhi calaamadaha qofka munaafiqa waa saddex. markuu sheekaynaya been buu sheegaa, markuu ballamo ballanta uu ka baxaa, marka la ammaano uu khiyaamaa. boqorkii Hiriqle markuu weydiiyey Abu Sufyaan, waxa uu weydiiyey Hiriqle muxuu amraa nebiga. waxa uu ugu jawaabay Abu Sufyaan, waxa uu amraa salaad, inta in la sheego, doorsoonaanta, ballantoo la oofiyo, ammaanadoo la guto. Hiriqle waxa uu yidhi waa calaamadda ama sifada nebinimada. nebigu ammaanadoo la dayaco waxa uu ku daray inay dhowaatay saacaddii qiyaame. nebiga calayhi salaatu wasalaam in acraabiya weydiiyey goormay dhacaysaa saacadda qiyaame. waxa uu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la dayaco ammaanada. waxa uu ku yidhi ninkii acraabigii sidee loo dayacayaa nebiyow calayhi salaatu wasalaam. waxa uu yidhi nebigu waxaa loo dhiibayaa cid aan ehel ahayn. xadiiska waxa uu kaga waramayaa in ammaanadoo la dayaco ay tahay saacadda qiyaamoo dhow. ammaanada lagugu ammaanay ilaali oo noqo dadka ehelkeediiya. hadallada laga yidhi ammaanada. Abu Hurayra waxa uu yidhi waxa ugu horeeya la waayaa waa ammaanada. ilaahay ka barya. faa'iidada laga helo ammaanada waxaa ka mid ah waa dhammaystirnaanta iimaanka iyo islaamnimada. waa sifooyinka wanaagsan ee alle ku ammaanay mu'miniinta. qofka aaminka ah alle baa jeceliya dadka. bulshada aaminka ah waa bulsho barakaysan iyo bulsho khayr badan. ammaanadu waa sifada nebiyada iyo sifada mu'miniinta. alle markuu ka waramayay nebiyada, nebi kasta waxa uu lahaa innii lakum rasuulun amiin. waxaan idiin ahay rasuul aamina. sifadaa rasuullada aan qaadanno oo aan noqonno kuwa ilaaliya ammaanada lagu ammaaneeyo. allah inaga dhigo kuwa ilaaliya ammaanada. shaqada maanta halkaa inoo joogto.